أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فيتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. codkaasi aad maqlayseen waxa uu ahaa madaxweynaha wadanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo ka qaybgalayay munaasabad lagu abaalmarinayay isla markaana lagu guddoonsiinayay shahaadooyin 136 arday oo xifdisay Qur'aanka Kariimka. munaasabad si heer sare loo soo agaasimay oo ka dhacday bartamaha magaalada Istanbul masaajidka weyn ee taariikhiga ah ee Hagia Sophia. munaasabada ayaa sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha baarlamaanka ee wadankaasi Turkiga Mustafa Shanuba iyo waliba sidoo kale agaasimaha diinta iyo waqaafta Ali Arbash iyo waliba culimada ugu caansan dalkaasi Turkiga. munaasabada ayaa sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa Maxamed Hamdan oo ah madaxa golaha ku meel gaarka ee dalka Suudaan oo booqasho ku jooga dalkaasi Turkiga. boqol iyo 36 arday xifdisay Qur'aanka Kariimka ayaa waxaa kamid ah wiil uu yahay
madaxweynaha waddanka Turkiga oo lagu magacaabo Umar Tayyib oo uu dhalay wiilkiisa Najmuddin Bilal iyo weliba sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka ee waddankaasi Turkiga wiil uu yahay oo isna lagu magacaabo Umar Caasim. munaasabadan qalinjibinta ardada xifdisay Qur'aanka Kariimka ayaa waxaa sidoo kale oo ku soo beegmaya xilli oo madaxweynaha waddanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo xarig ka jaray masaajid kale oo laga dhisay bartamaha magaalada Istanbul oo uu muddo 27 sano uu ku haminayay in masaajidkaasi uu dhiso.